مسؤولين هير deegaana ugu horeeyo madaxa arrimaha xisbiga barwaaqo laanta deegaanka Soomaalida maamulka gobolka Afdheer iyo kuwa degmada Hargeysa ayaa soo kormeeray goobaha adeeg bixinta iyo mashaariicaha مسؤولينta ugu horeeyo madaxa arrimaha xisbiga barwaaqo laanta deegaanka Soomaalida mudane Faysal Rashiid oo ay weheliyaan wasiirka xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka maamulka gobolka Afdheer iyo kuwa degmada Hargeysa ayaa soo kormeeray goobaha waxbarashada cusbitaalka Hargeysa dhismaha fardhaamka tuulada Sarmaan ee degmada Hargeysa iyo warshada milixda ee God Cusbo مسؤولين تايين تكرمير كوتشرين كل ما لقادن يمامولياش الدكسية ماريا عسبتال كاي مامول كإسكاش تدا ملح ذا جود عسبة سيجوا بهاني لو قاعد عقبضها كتير يملها أباها نتاكلين تسيب شذا اللوسي يتاجر ذا يباهيين وحنا وجدنا كرمير كان نجوا وربحية مسؤولين تهير دجان كرمير كان يكوجد ترتي ماشان شوفنا وحوي وجود عسبة يورشدي وحوي عسبة سوسة رئيسي كنتي قاعد بنوقف فرح سنة هاي قبل كافدير وعن شلي تيمي maantana aanu kormeer ku maray meelo fara badan meelaha aan soo maray waxa kamid ah macad waxbarasho runtii maadi iyo diiniba leh oo walaalaha waxa weeye qurba joogta ah iyo kuwa waxa weeye qaranka deegaanka joogaba intay iska kaashadeen ay dhiseen oo runtii aad arkayso aad u tayo badan arday waxa weeye la 300 gaaraysan ay ku xariisan yihiin oo u badan dad waxa weeye aqooma ah gobolada degmooyinka gobolka ka kooban yahay laga soo ururiyay runtii hawshaas aad bay noo dhiirigelisay waxay muujinaysaa waxa weeye sida isxilqaan kale waxa weeye bulshada gobolkaani isugu tashanayaan qurba joogtooda iyo waxa weeye isugu xiran yihiin bulshada xaggan waxa weeye xagga waxbarashada ay xoog u saarayaan waxa kale oo soo aragnay xarunta caafimaadka ama isbitaalka waxa weeye Hargeysa runtii isagana waxa weeye adeeg aad u ballaaran bixinaya shaqooyin fiican ay ka socdaan runtii wixii markaa waxa weeye aan ku aragnay markii laga tago warmaaga iyo dadaalka meesha ka socda meelihii ay uga muuqatay in waxa weeye sixitaan lagu sameeyana wixii tala bixin naga aadanaa waa ka geysanay waxa iyadana boogaadin mudan iskuul kale waxa weeye loogu talagalay dadka barakacayaasha ah iskuulka waxaan boogaadinayaa shirkadii dhistay laftigeeda aad baan u boogaadinayaa iskuul aad moodo waxa weeye tayadiisu inuu aad u sareeyo arday fara badan waxa weeye aan fursad u heli lahayn waxbarasho ay ka faa'iideysanayaan oo runtii aad waxa weeye loogu farxaa magaaladana waa ka fog yahay dad barakacayaal waxa weeye adeeg waxbarasho aan heli lahayn ba meeshaasna waxa weeye dad waxa weeye wanaagsan oo maalqabeenadii waxa weeye deegaankan aagaan u dhashay ba maalgeliyay dhisay lacag waxa weeye ila 14 milyan baa ku kacday ismihiisa tayada markaad fiiriso iyo lacagta ku baxdayna aan isleeyahay wax baan aad looga taxadaray buu ahaa intii ka dambeysay waxaan nimid God Cusbo waxaan soo booqnay waxa weeye Habardaam hadda waxa weeye la dhisayo oo qiyaastii waxa weeye 101 kun oo mitir cube oo biyaha qaaday oo hadda meel fiican maraya walow uu soo jiitamay laakiin maanta waxa weeye meel fiican maraya gabagaba maraya qandaraaslaha wuxuu noo sheegay muddo waxa weeye bil ama 2 bilood ugu badnaan inay ku soo gabagabeynayaan annagana markaanu fiirinay qiimeynay waxa noo soo baxday muddada uu qabsaday inuu ku dhameyn karayo runtii horumar ballaaran baa ka socda hadda meesha aan joogno waxa weeye waa warshadii waxa weeye cusbada ama milixda soo saaraysay runtii dadaal fara badan investment badan baa la geliyay tiimka waxa weeye meeshan maal gashaday waxay noo sheegeen ilaa waxa weeye 100 milyan lacag ku dhow inay waxa weeye ku investigareeyeen haddana waxay wax soo saarkoodu aad u fiican yahay maalintii ilaa waxa weeye 7600 kiish oo waxa weeye kintaal oo milix ay soo saarayaan waxay u baahan tahay kaliya waxoogo in la yaraha ballaariyo warshado kale waxa weeye gash u noqon karaya warshadana waxa weeye la keeno sida waxa weeye taa kiishashka ama jawaanada soo saarta oo kale oo ay sheegeen in maarta kharash lacag fara badan kaga baxdo meel kale loo keeno oo iyaguna ay qorsheynayaan hadda waxa weeye meesha ka sameeyaan runtii waa arrin bogaadin u baahan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay